madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi hogaaminaya maanta booqasho rasmi ah ku yimid wadanka Itoobiya qaadanaysa muddo 2 maalmood kadib markii uu martiqaad ka helay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya mudane Abiy Ahmed madaxweynahaasi iyo wafdigiisa si aad ayaa loogu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa maanta markay soo gaareen kadibna waxaa loo galbiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha markii loo gulbiyayna waxay wada yeesheen wada hadal dheer qoto dheer oo dhinac walba khuseynaya ugu horeyn waxay aad uga wada hadleen xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya arrimaha amniga arrimaha gobolka isafgaradkii saddex geesoodka ahaa ee Soomaaliya iyo Itoobiya Eritrea ka dhaxeeyay sidii loo dardargelin lahaa arrimo fara badan oo iskaashiga xagga ganacsiga waxbarashada iyo arrimahaas oo dhan waa laga wada hadlay madaxweynahana wuxuu muujiyay intii lagu jiray iskaashi wada hadalkaas sidii uga go'an tahay Soomaaliya in wax walba oo ka jira geeska Afrika lagu xaliyo isafgarad iyo heshiis arrimaha siyaasadda iyo arrimo kasta oo ka jira geeska Afrika in lagu soo dabaalo si nabad ah ayuu muujiyay madaxweynaha kadib madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxay wada yeesheen qado shaqo ay ku yeesheen xafiiska ra'iisul wasaaraha intii hadda ilaa berri ay joogaana wada hadallo kala badan ayaa u sii socon doona madaxweynaha iyo wafdigiisa hadduu la yiraahdo